danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya oo soo magacaawday dalkani Qatar mudane Cabdirasaaq Faarax Cali horena u soo ahaan jiray safiirka Soomaaliya oo fadhin jiray dalka Cumaan ayaa waxa warqadihii aqoonsiga ka gudoomay amiirka dalka Qatar Sheikh Tamiim bin Hamad Al Thani sidoo kalena u gudbiyay fariin uu ka siday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaba safiirka oo arrinkaasi ka hadlaya wuxuu yiri waxaan la xiriiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan weydiiyay oo waxaan u sheegay inaan maalinka Arbacada la kulmahay amiirka waxaan weydiiyay tala ahaan maxaan kala hadlaa oo qodobo ah oo fariin ah aad ii dhiibaysaa hal fariin buu soo faray oo runtii wax weyn ah igu salaanka bacdina waxaad u sheegtaa in maaragtay aad nooga codsataa codsigaygana aad gaarsiisaa jaaliyada Soomaaliyeed haday gudaha joogto iyo haday dibadda joogtaba in ay ka shaqeysan karaan dalka Qatar oo loo furo ciqaamadihii qofkii shaqo hela waqtiga hadda maanta la joogo qofkii shaqo hela haduu yahay xirfadle iyo haduusan xirfadle ahaynba ciqaamad ma heli karo oo baasaboorka Soomaaliga ah oo wata awgeed kulankii maantay dalabkii madaxweynaha markaan geeyay meeshii baa lagu aqbalay amiirkiina meeshii baa amarkii ku bixiyay in loo furo Soomaalida ciqaamadaha sida ummadaha kale ay ugu furan tahay meeshiiba amarkii ku bixiyay insha Allah taala bari shaqadayda ugu horeysana dabagalkeedii iyo siday ku furmi lahayd waxaan rajaynayaa maalmo gudahood qof kasto Soomaaliya oo shaqo ka hela dalka Qatar in ciqaamadii ay u furan tahay si fudud oo ka sahlan sida waliba jaaliyadaha kalena sidii amiirku uu amray inuu ku heli doono taasna waxay ahayd runtii arrin aad loogu farxo waxaa sidoo kale danjire Cabdirasaaq Faarax Cali warbixin gaaban ka siiyay saxaafadda taariikh nololeedkiisii iyo khibradihiisii shaqo ee soo maray iyo kulankii uu la qaatay qaar kamid ah odayaasha jaaliyada Qatar asigoo halkaas ugu soo bandhigay qorshe hindiseedkiisa ugana horeysay sida Soomaalida fursadaha shaqo ee ka jira dalka Qatar loogu furi lahaa baasaboorka Soomaaliga hadaba safiirka oo arrinkaasi aan baqaadayna wuxuu yiri 1984 markaan ka baxay dugsiga sare ayay ahayd markii iigu horeysay inaan dalka Soomaaliya dibadda uga baxo dalkii koowaad oo aan imidna wuxuu ahaa dalka Qatar magaalada Dawxa marka waxay ahayd magaaladii iigu horeysay ee aan booqdo ama dalkii iigu horeeyay aan booqdo oo ka baxsan dalka Soomaaliya taas waa taariikh gooni ah oo xilli hore ahayd waqtigaas ima suurta gelin jaamacad doon baan ahaa inaan jaamacad ka helo waxaan marka u gudbay Sacuudi Carabiya oo aan jaamacad ka helay jaamacadda la yiraahdo jaamacadda Malik Saud halkaas aan waxbarashadeedii 85 ilaa 90 ku dhameystay kadibna burburkii markuu dhacayna Soomaalidii dibadda u baxday baan ka mid noqday markii dib la isugu soo noqdayna oo shaqooyinkii Soomaaliya iyo gudaheeda laga bilaabayna waxaan ka soo shaqeeyay dalka Imaaraadka muddo ka shaqeynayay muddo ka bacdi haddana waxaa safiir la iga soo dhigay wadanka Cumaan oo 3 sano iyo bar aan safiir ka ahaa oo hadda la iga soo bedelay iyo halkan Dawxa oo maantay safiirkii Soomaaliya aan ahay marka intaas oo dhan markii la isku daro waxay ku tusaysaa inaan aqoon badan u leeyahay wadamada khaliijka qofku markuu dalka dibadda uga soo baxo wuxuu matalayaa dalkiisa wuxuu noqonayaa wax kasta uu sameeyo waxa loo celinayaa dalkii uu ka yimid sida darteed anigu aad ugu faraxsan sumcadda ay ku leeyihiin iyo taariikhda ay ku leeyihiin oo meesha la iiga cadeeyay ilaa hadda inaan lahaynin wax criminal record ah dambiyadan waaweyn ee la record gareeyo ah oo jaaliyada Soomaalida oo ku jirta jaaliyadaha ugu waaweyn in ilaa hadda aan lahaynin taas runtii waa wax lagu amaano oo aad u weyn oo aad u fiican waxaan leeyahay jaaliyada Soomaaliyeed arrintii aan laba laabno ciqaamadihii waa la inoo furay waxyaabaha kale oo naga dhiman oo waxbarashadu ka mid tahay ay ka mid tahay markas thaqaafi wax la yiraahdo ama meel xarun jaaliyada Soomaalidu ay leedahay ay ku xigto iyo dadka waaweynaaday ciqaamadahooda oo gaaray maaragtay da'da beeshinka ciqaamadahoodii ayagana oo ciqaamad daa'ima in ayaguna ay helaan qodobo fara badan baa iigu jira waajibaadkayga oo jaaliyada ku saabsan markii laga reebo waxyaabaha dawladda Soomaaliya iyo dawladdan dhexdeeda ah waxaan leeyahay marka jaaliyada aan isgarabsanno isla shaqayno furaska aan helnana aan ka faa'iideysano
sumcadeennuna aad bay u fiican tahay intii hore inaad ka laba laabtaan oo aad sii laba jibaartaan ayaan idinkana idinkula dardaarmaya. Cusmaan Indhoos, TV-ga caalamiga Universal TV, magaalada Doha.